bismillaahi raxmaani raxiim waa xudeydii oodileh assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kan waa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo oo ah madaxweynihii sideedaad ee dalka Soomaaliya. mushaar ahaan oo qaata sanadkii $120,000 bishiina qaata $10,000. dalka Soomaaliya waa dal ku yaala bariga Afrika waxaana ku nool tiro-koob dad lagu qiyaaso 14,074,000. dalku wuxuu dagaal sugayay ku jiray iyo faqri iyo dhibaato muddo ka badan 30 sano kadib markii ay burburtay dowladdii Maxamed Siyaad Barre. hase ahaatee ilaa hadda xasillooni kamaysan dhalin. hantida maguurtada ee dadka bankiga qaranka u taalla waa $7.368 milyan. dagaal sugay Soomaaliya waxay kusoo jirtay muddo 30 sano ah. ilaa hadda amni iyo xasillooni iyo nabad midna kamay dhalin. dalku wuxuu u kala qaybsan yahay maamul goboleedyo kala duwan ay ka mid tahay Jubbaland, Puntland, Somaliland, Mudug, Hirshabelle, Koonfur Galbeed. waxuu dalku ku jiraa xaalad adag muddo dheer. madaxweynahan hadda aad ujeedaan waa madaxweynihii sideedaad ee dalka Soomaaliya oo lagu magacaabo maxamed cabdulaahi farmaajo. waxaanu daawan doonaa madaxda adduunka ugu mushaarka badan daafaha dunida iyo qaaradda Afrika iyo Aasiya iyo Yurub iyo Ameerika intaba. waagaag waxaa noogu xiga aynu kusoo qaadanaa qodobo dhowr ah oo aada muhiim aynu kaga hadlayno waxyaabo badan oo ku saabsan. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya wuxuu xilka qabtay sanadkii 2017 waana madaxweynihii sagaalaad ee jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya. wuxuu xilka hayay muddo 2 sano ah. waagaag qodobka xigeen waagaag qaaradda Afrika waa qaarad sabool ah. haddaba waxaanu kusoo qaadanaynaa 10 madaxweyne ee ugu mushaarka badan qaaradda Afrika. qodobada aynu kusoo qaadanayno haddaba ku daawano 10 madaxweyne ee ugu mushaarka badan qaaradan waa 54 dal bay ka kooban tahay. kan waa Hage Geingob oo ah madaxweynaha dalka Namibia. wuxuuna mushaar ahaan u qaataa $100,000 sanadkii oo u dhiganta celcelis ahaan bishii wax ka yar $10,000. dalal badan oo qaaradda Afrika ayaa ah sabool. dalal badanna waxay ku jiraan xooggan nolol dhexdhexaad ah inkastooba hadda ay soo bilaabanayso siyaasadda istiraatiijiga ee isbeddelka nololeed. madaxweynahan wuxuu xilka hayay muddo u dhow dhowr iyo 10 sano ah. waxaanu xilka ka bedelay madaxweynihii hore ee dalkaasi hore u haystay. kan waa madaxweynaha dalka Namibia ee hadda xilka haya. wuxuuna xilkaas hayay muddo dheer. kan waa madaxweynaha dalka Democratic Congo Joseph Kabila. wuxuuna mushaar ahaan u qaataa $110,000. marka la eego mushaarkiisa rasmiga ahi bishii celcelis ahaan waa $5,000. wuxuuna xilka qabtay sanadkii 2000. hadda wuxuu xilka hayaa muddo dhowr iyo 10 sano ah. dalkiisu wuxuu kala qaybsan yahay 2 dowladood oo kala ah tan dimuqraadiga ah iyo tan republic ah. labada wuxuu haddeer xilka hayay muddo dhowr iyo 10 sano ah. celcelis ahaan mushaarkiisa waxaa lagu qiyaasaa bishii $5,000 sanadkii $110,000. dalkiisu waa dal sabool ah oo u kala qaybsamay 2 dal. kan waa Asili Assoumi oo ah madaxweynaha dalka Comoros. wuxuu mushaar ahaan u qaataa $115,000 sanadkii. wuxuuna bishii celcelis ahaan qaataa wax ka yar $7,000. madaxweynaha Asili Assoumi wuxuu xilka hayay jamhuuriyadda Comoros muddo dhowr iyo 10 sano ah. kan waa Xasan Cali Sheikh oo madaxweynihii 7aad ee jamhuuriyadda Soomaaliya. xasan cali sheikh wuxuu xilka hayay mushaar ahaanna wuxuu u qaataa $120,000 bishii. wuxuu mushaar ahaan celcelis ahaan u qaataa
10,000 oo doolar. Waxa uu xilka hadda ka bedelay madaxweyne Cabdullaahi Farmaajo. Kan waa Uhuru Kenyatta, madaxweynaha dalka Kenya. Wuxuu mushaar ahaan u qaataa sanadkii 132,000 oo doolar. Waxa hore dalkan Kenya wuxuu xukumi jiray aabihii oo ah Jomo Kenyatta. Hadeerna wuxuu xukumaa dalka Kenya. Celcelisaan mushaarkiisu bishii. Kan waa madaxweynaha dalka Guinea, Teodoro Obiang Nguema Musugu. Wuxuu sanadkii mushaar ahaan u qaataa 150,000 oo doolar. Waa dal sabool ah oo ka tirsan qaaradda Afrika. Guinea Equatorial loo yaqaanaa. Wuxuuna xilka hayay muddo 12 sano ah oo madaxtinimada dalkaasi u talinayay isagu Teodoro Obiang. Kan waa Cabdicasiis Bouteflika, waa madaxweynaha dalka Algeria. Wuxuu sanadkii mushaar ahaan u qaataa 168,000 oo doolar. Asalkiisu wuxuu kasoo jeedaa dalka Morocco, waxaana uu yahay siyaasi dalka Algeria ah. Wuxuuna xilkan qabtay madaxtinimada dalka Algeria 1999. Ilaa hadda wuxuu hayaa xilkan. Waxaa jira siyaasiyiin kasoo horjeeda mudaharaad mararka qaar sameeya. Kan waa madaxweynaha dalka Koonfur Afrika, Cyril Ramaphosa. Wuxuu qaataa mushaar ahaan 411,000 oo doolar. Dalkan wuxuu ku yaalaa koonfurta qaaradda Afrika. Wuxuuna xilka madaxtinimo ka bedelay madaxweynihii hore oo haystay Kasumu. Wuxuuna dhacaa qaaradda dhinaceeda koonfureed. Waana dal noloshiisu iska meel dhexaan tahay oo dhaamo dalalka qaar noloshooda qaaradda Afrika. Laakiin waa dad dilaayaal oo cunsuri ah. Boqorka dalka Morocco, Boqor Maxamed, wuxuu mushaar ahaan u qaataa 480 sanadkii. Boqorkani wuxuu xilka dalkaasi Morocco qabsaday waqti hore. Wuxuuna nolosha dadka ka bedelay waxyaabo badan maadaama dalkiisu ahaa dal sabool ah. 10% dadkiisa waxbuu u qabtay. Noloshooduna sidii hore way dhaantaa. Paulima waa Cameroon, waa madaxweynaha ugu mushaarka badan qaaraddan Afrika. Wuxuuna sanadkii mushaar ahaan u qaataa 610,000 oo doolar. Waa madaxweynaha ugu horeeya qaaradda Afrika ugu mushaarka badan marka laga reebo madaxweynaha labaad uu yahay boqorka dalka Morocco. Wuxuu xilka hayay dalkaasi waqti aad ka badan 12 sano. Waxaynu sii daawan doonaa qaaradaha kale Aasiya iyo Yurub iyo madaxda ugu mushaar badan caalamka. Kan waa madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump oo kala wareegay jagada madaxtinimo madaxweyne Obama. Wuxuu mushaar ahaan u qaataa madaxweynahan sanadkii 400,000 oo doolar. Hanti badanna wuu leeyahay lagu qiyaaso 4.5 ama 4.5. Waana dalka dunida ugu hodansan marka la eego qaaradaha qaar iyo madaxda caalamka inteeda kale. Waa madaxweynaha ugu mushaarka badan caalamka. Dalkan wuxuu awood military ku leeyahay caalamka. Wuxuuna aad buu u baaxad weyn yahay. Tirakoobka dadkiisuna waxa lagu qiyaasaa in ka badan 30 milyan oo qof. Waxa ku xiga qodob kale. Kan waa Justin Trudeau oo ah ra'iisul wasaarihii dalka Canada sanadkii 2013 ilaa sanadkii 2015. Wuxuu mushaar ahaan sanadkii u qaataa 260,000 oo doolar. Wuxuu xilka hayay sanadkii 2013 ilaa 2015. Waa 51 jir. Waxaana uu wax ka bartay jaamacadda British Columbia. Wuxuuna ku dhashay magaalada Ottawa ee dalkaasi Canada. Waxaana uu ahaa ra'iisul wasaare muddo 4 sano ah kaliya. Heerkiisa waxbarasho waxa uu qalin jebiyay sanadkii 1988 ilaa intii u dhaxaysay sanadkii 1994 isagoo ka baxay jaamacadda British Columbia.
oo ku qalin jabiyey magaalada Ottawa ee dalka Canada. Waa hagaag qodobka xigeen eegaynaa iyo madaxda caalamka. Kan waa madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron oo qabtay sanadkii 2017 14 May madaxtinimada dalka Faransiiska, wuxuuna mushaar ahaan u qaataa bishiiba $14,000 iyo $999, waana wuxuu wax bartay sanadkii 2002. Waa 41 sano jir, wuxuuna ka tirsan yahay xisbiga Le Républicain Marche, wuxuuna ku dhashay magaalada Amiens ee dalka Faransiiska. Tan waa Theresa May oo ah ra'iisul wasaaraha dalkaasi Ingiriiska, waxay mushaar ahaan sanadkii u qaadataa $186,000, waxayna xilka haysay muddo ilaa sanadkii 2016, waxayna ka tirsan tahay madaxa baarlamaanka ee 1997 ay qabatay iyo xisbiga loo yaqaan Conservative ee xisbiga dalkaasi Ingiriiska ka tirsan, waxayna xiisaysaa buugga loo yaqaan Tories Book, waxayna da'deedu tahay 63 jir, waxay dhalatay 1956, waxayna wax ku baratay dalkaasi Ingiriiska, waxayna madax ka tahay baarlamaanka sanadii 1987 ilaa maanta waxayna xisbigeedu dalkaasi hogaamiya, iyaduna waxay tahay wasaare, waxayna xilka kala bedeshay sanadkii 2016. Tani waa ra'iisul wasaaraha dalka Jarmalka, waxaana lagu magacaabaa Angela Merkel, waxayna mushaar ahaan sanadkii u qaadataa $237,000. Waxay xilka qabatay sanadkii 2000, waxayna xilka haysay muddo 12 sano ah. Waxay ka degi doontaa xilka sanadka 2021. Dalkani waa dal aad u xun oo dadkiisu yihiin cunsuri, dad wanaagsanna ma aha, oo ku fiican bini'aadantinimada iyo isdhexgalka. Waxaa ka dhashay hogaamiyihii ugu xumaa adduunka ee Hitler, waxaana soo martay taariikho aan la ilaawi karin oo dunida intooda kale aanay ku fiicnayn, dadka Soogalootiga ahna way yeesaan. Hase ahaatee, iyadu waxay ka qalin jabisay, waxayna ku dhalatay magaalada Hamburg oo ku taalla dalkaasi dhinaca waqooyi, waxayna ka qalin jabisay jaamacadda dalkaasi sanadii 1977 iyo intii u dhaxaysay markii dambe u wareegtay jaamacadda Leipzig University 1978. Waxay xilka madaxtinimo la wareegtay sanadkii 2000 iyadoo xisbigeeda ay ka tirsan tahay Midowga Dimuqraadiga Jarmalka sanadkii 2005. Haddaba waxay u talisay ra'iisul wasaare u tahay dalka dhaqaalaha afraad ee caalamka ah, waxayna xilkaasi ku fadhiday muddo hadda 12 sano gaadhaysa, waxayna ballan qaaday inay xilka ka degi doonto sanadka 2021 kadib markii xanuuno ay soo wajaheen. Kulamo ay la qaadatay madaxweynaha dalka Ukraine mar uu u yimid ay sababtay inuu gariir ku dhaco ilaa loola tacaalo goob caafimaad oo degdeg ah. Xanuunkaasi hadda ka cabataa, sidaas daraadeed iyadu iskeed waxay u go'aansatay inay xilka isaga degi doonto sanada 2021. Hase ahaatee, iyada iyo xisbigeedu dadka qaar waxay kula taliyaan inay xilka iskaga tagto. Sida ay hadalka iyadu u dhigtay, waa dal barwaaqo sooran ah oo hodan ah oo dhaqaalaha koowaad ee qaaradda Yurub ku jira, kana mid ah dalka afraad ee caalamka ugu dhaqaalaha badan. Kan waa Sheikh Zayed ibn Suldaan oo ah Suldaanka Maxamed bin Zayed oo ah madaxa dalkaasi dowladda isu taga Imaaraadka Carabta.
wuxuu xilka la wareegay sanadkii 1818 wuxuuna wax ku bartay magaalada Abu Dhabi. Xilliga uu ku dhashay wax ku bartay wuxuuna abaalmarin ka haystaa dalka Romania shahaado loo yaqaan. waxaana aqoontiisa waxbarasho ay ku xirsan tahay Akadeemiyadda Ciidamada Isutaga dalkaasi Imaaraadka Carabta. Dalkan waa dal baaxad weyn dhaqaalana ku ah shidaalka iyo saliidda dabiiciga ah. Haddaba kani waa Sheekh Maxamed bin Rashid Al Maktoum Suldaan oo Isutaga Imaaraadka Carabta u talinayay ilaa sanadii 1918 wuxuuna hanti haystaa 18 bilyan oo dollar, waana dhaqaale badan yahay dalkiisu. Magaalada Dubayna waxay ka mid tahay magaalooyinka dunida iyo caalamka daafooda ugu quruxda badan. waxaanu dhaxalka kala wareegay aabihii sanadku markuu ahaa 1918. Al Maktoum Allah u naxariistay wuu dhintay. Haddees waxaa xilka haya Sheekh Maxamed bin Rashid Al Maktoum oo ah suldaanka dalka Isutaga Imaaraadka Carabta. waxaana uu jiraa hadda 33 jir. xilka markuu uu la wareegay wuxuu ahaa sanadku markuu ahaa 1918. hadda isagu da'diisu waxay tahay 33 sano, waana suldaanka Isutaga dalkaasi ee hadda xukuma. waaga qodobka xigay waxaan kusoo qaadanaynaa dal ka mid ah Aasiya. Kani waa madaxweynaha dalka Shiinaha Mr. Xi Jinping oo mushaharkiisu bishiiba yahay 20,000 oo dollar. waxaanu ka tirsan yahay xisbiga gumaystaha dalka Shiinaha oo jagada hantay sanadii 2013. wuxuu bartay intii u dhaxaysay sanadihii 1975 ilaa 1979, wuxuuna dib u qalin jebiyay sanadku markuu ahaa 2002. waxa uu ku dhashay magaalada Beijing ee dalka Shiinaha, waxaana wax ka bartay jaamacad ku taala Tsinghua oo sanadku markuu ahaa 1998 ilaa sanadii 2002. Xi Jinping waa 66 jir, waxaana xilka dalka Shiinaha hayaa muddo ku dhow hadda 6 sano oo uu ka ahaa madaxweynaha dalkaasi isagoo ka tirsan xisbiga gumaystaha. haddaba waa qodobadii maanta intaasi noogu dhan yihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.